salaad jumca khudbada iyadoo laga baxay ayaa walaal aan Soomaali ahayn oo muslim ahaa ayaa intuu yimid wuxuu yiri sheekhow walwal adduun maanta ma ku hayaa markaas aan iro qof uu san hayn miyaa jira wax aad ka walwalsan tahay maanta ma jiraan طبعا boqolaal shay baa laga yaabaa inaan ka walwalsanahay ma halka shay oo walwalka ugu badan noloshaada ku haya halka shay oo caawa hadii awood lagu siiyo inaad wax ka qabato aad ka qaban kari lahayd laba ma aha saddex ma aha afar ma aha hal shay awood hadii lagu siiyo 5 daqiiqo ama 5 ilbiriqsi aad wax uga bedeli karto maxay ahaan lahayd masaajidkan oo kale aan joognaa halkan aan taagana ma xasuusto erayadii aan ku irisaan u iri laakiin waxaan xasuustaa inaan ku iri aabahay Allah u naxariista oo markay aad u xanuunsanaa oo kansar uu hayay dhowr bilood mindhaa sanad ka hor intuu ilaahay uusan oofsan ayaa aan u malayn inaan ku iri haddii maanta awood aan lahaan lahaa aan wax ku qabto oon wax ku bedeli karo oon qof wax siin karo aan ogahay inaanan siin karin awoodda haddii caawa la isiin lahaa aabahay oo 30 sano sariir saarnaa ayaan caafimaad siin lahaa waan ogahay oo ilaaha bixiya laakiin de waa iska su'aal waayahay markaasaan iri adiguna markaasuu wuxuu yiri walaalow 25 sano oo la soo dhaafay mas'alo idhibayso kurba igu haysay ayaa ilaa maanta igu haysa walwalka ugu weyn iyo walaaca ugu weyn iyo muraaradalaaca ugu weyn oo noloshayda maanta aan oran karo way ahayaa oo qalbigayga kala googooyay ilintu ay dib igu noqotay يعني عيل يا مرارد الله عدرتيس أيسن حتى يقصوا بحين ومسألة شن إلا 20 سنة اسكسيون إيه هيد وحش اللي يقول بالله وذي معها سنة كهر وح بالله وذي معها تضرب سنة كهر وح بالله وذي معها شن إلا 20 سنة والربع قرن مركز أنا رمحي هيد وحويري شن إلا 20 سنة كهر أيان أنا قبل أن أسقبنه أنا سجور سنة وحاهد مالن فرحت بدن oo de qof walba reer iyo safarkaas farxad la bilaaba waa maalin farxadeed wuxuu yiri 25 sano oo la soo dhaafay gabadha ay anigu wax kale ma aanan qaban waxaan raadinayno oo gees ilaa gees bari iyo koonfur galbeed iyo waqooyi caalamka idil aan u marnay in hal ilmo ah aan dhalno hal wiil gabar gaaban dheer cas madow maariin ma kala jecelin هل إلما أهنا دلنا هل شن إلا 20 سنة أو نلا شيء ده وحنكب بحيي سكول إن هذا كم بحن لعج إن تبع هذا كم بحن ضد إن سكول لك سعر كم بحن تعليم كلا إن أسفر كم بحن وح أن بحيي أو كلا أو ما أنت أرنكر وحسن شن إلا 20 سنة أو صار في أن قبتي ما يجران إلا كنت ضل أيان مرة دكتور كستا أو عافيمات كإلمها يدلان كقصابسن أو عالم كقلبات كجوجا ويري همدان أتجن شان إلا 20 سنة كنتن سنة أمرا بور كستا يبهل كستان وقدعا جورنال يماجزين قصابسن دلان كإلمها يورك يو أونن آخرين أو عالم كقصوا بحشان إلا 20 سنة ويري شن بقول أو كن أو دولار ونص مليون سما شن بقول أو كن أو دولار أيان شن إلا 20 سنة كبحيي ماشي مالن اللي يقول هذا دختر بجوجا ودتسانو كلا إنتهى كل عضي ساكويريو ساسين نقولنا كدب الماء أنا راديو مالن جرمال كان آذو مالن أفريقيا أن سو آذو مالن إنديا أن آذو مالن مريكان أن آذو مالن أمريكا كان آذو شن إلا 20 سنة وعمري جيجا كجوان شن بقول أو كن أو دولار oo dhididkayga iyo dheecaankayga aan saacado fara badan mararka qaar kood 3 shaqo oo isku xigta intaan mid ka baxo 8 saac oo mid kale galo 8 saac ayaan mid kale galay 8 saac 24 saac halkaas ku dhamaadeen waa 3 shift inta waxaan u maray maalin in aan ilmo yeelno oo aan aabe la yiraahdo gabadha aan isla joogno nolosha isla qaybsanana hooyo iyadana la yiraahdo oo ilmo yaroon dhalnay aan aragno oo socda oo sii socda oo soo socda oo habeenkii nala seexda
وحتى دبك المها وفرحد إنسانك وباهنيه سبحان الله. وحنزو حسستي الله جل جلاله يهب لمن يشاء إناثا. وحلقة يابا هل كان رقبا فرقية عاو أما هو يوينبا شنقب لود له هدي عاو أن ويدين لها محام ما أنت تجعلان لها أبد كاغا مركات كيف فكرت الرير كاغا وحميها كامقا والله يابا هل كان إنه يهور فرديان قف يوران لها إنو جرو ورنيه الشنقب لود بان لها الحمد لله عدبكم قبل لكن إله يا ويل يقدره أما الله يقدره. ويهب لمن يشاء الذكورا إلهي أدو ربنا إسقا ويلسية هل كان لغا يابا عاو إنان إسلفر لنه آبئي هو يهدان ويديو ما يبي شيخ محمد إنه هذا كم تهايبا موغي أن أرى لها وبتكاغي المها وما شاء الله وحل بصو معها دق معها نيو والحمد لله أرد واحد باتها مجران لكن لحويل أيان وحان كسما يقران له dhibkoodii aan la seexan lahaa habeenii maalinba bal waxaa la yiri gabdhaha ka naxariis badan gabar iyo laba haduu Ilaahay siinay waa balayso duca sheekha labana cidina midna gabdhu siiyaa midna wiilashu siiyaa wiilal buu siiyaa midna labadu isugu daraa dhukraanan wa inaatha. halkan waa fadhiyaan hooyaday waxay dhashay 4 wiil iyo 2 gabdhood oo la isugu daro halkan qof baa fadhiya 4 wiil iyo 1 gabar 3 gabdhood iyo 3 wiil 2 gabdhood iyo 4 wiil Ilaahay uu isugu daro nimceeyo barakeeyay. wayaj'alu abaka yeela halka loo soo socdo wataa man yashaa'u cidda uu doono. marka waxaan soo xasuusan walaalkii maalinta su'aasha i weydiiyay oo waagaas igu yiri amrigayga oo dhanba waqti u dhigma ayaan waxaan raadinayaa hal ilma ah in Ilaahay uu siiyo lacag noloshayda say waqtahay aanan aragna igu yiri waxaan ku bixiyay hal ilma ah unsaan ku heli lahaa. Ilaahay og yahay inaan arki doonaba lacag inta la eg noloshayda kullay wali aanan arag ya aan ku bixiyay. wayaj'alu aba man yashaa'u kayala man yashaa'u cidda uu doono caqiman aqli kastuu leeyahay lacag kastuu bixiyo cid kastuu yaqaano caafimaad kastuu doono dhakhtar kastuu la hadlo ajashi aabaa waxay noqotay Ilaahay ayaa xukmay in uusan weligiis aaba noqonaynin wiil iyo gabar toona inuusan dhalaynin. aqli kastay leedahay cilmi kastay leedahay qurux kastay leedahay si kastay deeqsiyad u tahay oo wanaagsan tahay oo Ilaaha xukmay iyana inaysan hooyo noqon doonin weligeed haddana aysan ahayn barina aysan noqon doonin ilaa maalinta qiyaamana aysan dareemi doonin dhadhanka hooyanimo. waa dhadhan gooniyo insaanku uu dareemo oo macaankiisu uu ka duwan yahay dhadhan kasta oo aan dareeno ama la dareemi karo. macaankiisu uu ka duwan yahay qofkii ubad leh oo ubadkaasi maalin intaad banaanka dad isku soo layseen ama shaqo dheer aad ku soo daashay oo caguhu ku barareen oo caawo dhan aad taagnayd iyo maanta oo dhan inta guri aad timaado ilmo yaroo dhashay ay ku soo ag fariistaan oo madaxaaga iyo garkaaga iyo timahaaga iyo cagahaaga ku ciyaaraan baa garan kara macnaha iyo dareenka arrintaas ay qadiyadaas ay xambaarsan tahay baa garan kara oo waxaan garan karin qof sida walaalkaas oo kale intaasoo meel maray. wuxuu yiri waxaanse ku soo gabagabeeyo yiri noloshayda sheekadii noloshayda 2 shay marka af Ingiriisku marka igu leeyahay 2 shay ayaan yaani waan ka arrintaas waa ka joogay waa bas waa dhameeyay waa ka bogsada waa dhameeyay buugaas waan xiray inaan lacag dambe iyo dhakhtar dambe aan ku bixiyo ubad inaan doono saan hal u heli lahaa 25 sano waa ka bogsaday waa ka joojiyay. wuxuu yiri 2 eray oo mid wuxuu yiri waa daalay I am tired waa daalay wax kastaan sameeyay cod kastaan la hadlay sheekh kastaan iri ducaa dhakhtar kastaan ma aragtay waana weydiistay kow waa daalay. 2 wuxuu yiri eraygu yiri baan idin orane I am content waxaan ku qancay in marxaladayda iyo xaaladayda sida ay tahay aysan weligeed iska bedelaynin. وانا دالي وانا قنعة وابكسد معنا
waxaan ku bogsaday oon ka bogsaday in ilaahay wuxuu ii qoro mooyaane aanan helin wax kale lacag kasta oon bixiyo dhakhtar kasta oon la hadlaba akhi almuslim wa ukhti almuslima imisaa caawa halkan fadhida oon maalinna shilin aanan gelin ubadka aad leedahay in ilaahay uu ku siiyo imisaa caawa halkan fadhiya dhallinyaro oo guurdoon oo ilaahay guur wanaagsan oo farxad iyo kalgacayl iyo xushmad iyo iimaan iyo naxariis aan gaboobin oo duqoobin ilaahay ha siiye ah imisaa guurdoona caawa oo wax walba oo kale oo maskaxdooda ku jira ay tahay talow lacagtii arooska aan ku dhigi lahaa halkee laga keeni lahaa gabadha reerkooda goorbaan ka dooni lahayn odayaashii raaci lahaa cali iyo cusmaan mooyaane jaamac ma ku darsanaa masaa-ishaas ay qalbiga uga jiraan oosan marnaba aysan xisaabtaba ugu jirin ma laga yaabaa 50 sano 40 sano inaan isqabno qofkaas ilaahay calafka igu dari doono oon ubad ilaahay uusan siinin ma laga yaabaa waxaan idiin xasuusiyey anna aan isku xasuusiyey maxaa yeelay ilaahay qofka samafalaha samaha iyo wanaagga uu sameeyo marna ma dayaco ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin walaalkii sanooyin kadib ayaan mar ismaqalna weli ubad ma uusan lahayn gabadhii weli waa wada joogaan wuxuu igu yidhi akhi maxamed diiniyow ilaahay wax kasta oo kale waxaa iiga muhiimsan oon uga mahad celiyaa gabadhii adduunka ugu naxariista badnayd oo ugu dulqaadka badnayd oo iigu jeclayd oo iigu baarisanayd oo iigu hadal macaanayd oo iigu arxan fiicnayd oo iigu ixtiraam badnayd aniga iyo ehelkayga iyo waalidkayba ayuu ilaahay isiiyo inta badan iyadaaba i ilowsiisay mushkilo iyo muraaro dilaac kastoo ilmo la'aantaas 25 sano igu abuurtay allahu akbar ilaahay wuxuu iiga dhaqay wixii aan soo maray walwalkii iyo walaacii i kala gooyey walbahaarkii maskaxdayda qabsaday 25 sano waxaan gambar gaaban iyo mid dheer u fuulaba ilaahay wuxuu iiga zuuliyo iiga gooyo iiga dhaqay xanuunkaas gabaraan isleeyahay adduunkuba mandhaa iyadoo kale ma taagna adduunkaba iyadoo kale lama keenin fiiri ilaahay ma uusan dayacin wanaaggii iyo naxariistii iyo iimaankii uu lahaa inkastoo saas uu 25 sano la soo murugooday haddana wuxuu igu yidhi sidaasoo tahay ugu yaraan mandhaa 1,000 masjid oo kala duwan caalamka 50 dal oo kala duwan waa tagaa salaadan isku aadiyaa salaada markaan la tukado imaamkan u tagaa ku dhaha sheekhow dan ayaa i haysatay walaalo ii soo ducaa xataa uma sheegto waxa ay haysta ilaa 1,000 masjid waa gaaraysaa yiraahdo masaajidda aan tagay caalamka oo anoona cidna u sheegan aan jamaacantaan istaaga mararka qaarkood la ii haysto qof wax tuugsanaya ama lacag weydiisanaya oo da i qalbi jabisa laftarkayga oo war fariiso iraad ma cafwan ma lacagna ma weydiisanayo walaalayaalow arrin baa i haysata ii soo duceeya ilaahay inuu ii fududeeyo shaydaanku waa u qurxin lahaa dhowr sano markuu saa ku wado marka dambe wuxuu ku oran lahaaba war meeshan wax dadka meeshan fadhiyo masaakiinta ah waxba kuma qaban karaan iyaguna waxba iskuma qaban karaan iska daa meeshan aad tagaysaaba waqti lumis ah saasay tahay waxaan ku wada sheekaysanaynaa 25 sano kadib masaajid dhexdiis isagoo salaada jamaacada soo maaragtay soo istaagay marka waa tan koobaade xanuun kasta ood marto hadduusan eebbe adduunkan kaaga abaalmarin tii aakhira waa la wada ogyaho dee eebbaaba ballantaa qaaday laakiin samaha iyo wanaaggu khaasatan midda aad qarsato ood wax badan adoo u qallibi kara aad ku sabarto dad kalena af iyo adin xumaantaada aad ka reebtood ka celiso yani wuxuu yidhi inta jeer ma garan kartid inta jeeroo masjidka intaan istaago ay iqabataba dadka meesha joogo dhanba ma caysaayo ma ku qaylisaa لأنه wax kaa tan badan wax iga tan badan ayaa marba maaragtay soo qaada laakiin intaasoo dhan ilaahay kow wuxuu ku abaalmariyey adduunka in farxad iyo sakiino iyo deganaan guri oo laga yaabo in badan inaynaan haysan ilaahay hana wada siiye ah adduunkan ilaahay inuu ku siiyey dee aakhirana qofka wanaagsan ilaahay jalla jalaaluhu aan uga baryaynaa beeraha firdowsa maca annabiyiina waasidiiqiina washuhadaa wasaalixiina ilaahay inuu geeyo inagoo dhanna wada geeyo waa tan koobaad